Sam Sky Channel fadlan walaal subscribe deh channelkeena aad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelka kadib taawo kadib share like laagtana hanaga hilmaamin adoo mahadsan si ay ku soo gaaraan barnaamijyadeeni diiniga ah iyo waxyaabaha aan soo dhigno si aysan ku dhaafin akhbaaraadka caalamka uga dalqanayay meelo badan oo dhibaato ay ka haysato kadib qodobada aynu galnay qodobadii kadibna waa mid hadda salaada janaasada saan u weyn iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah aan qayb ka nahay bayna ummadda Soomaaliyeed aad ayaan idinka mahadcelinayaa ilaahay ajirkiina iyo xasanaadkiina Allah badiyo waa xaq la isku leeyahay qofka muslimka qofka kale walaalkiisa haddii uu geeriyoodo haddii suurtagelaysa inuu raaco haddii kale uu janaasada uu kala qayb qabo arrintan ayada marka waxaa aad yani baahida u keentay oo dadkoo dhan yani inuu janaasada meel walba ku ogaan keentay in lagu tukado in loo diiday soo marka horeba yani dowli iyo gardarada u haystay haddana markay tiirada u timid adigoo ka cabsanaya inay dadku kacaan oo dhahaan maxaa dulmiga loo geystay ayay iska duugeen si kelis oo degdeg ah dad yar oo yaa ku tukaday saasana lagu aasay laakiin ilaahay wuxuu keenay caalamka oo dhan in yani ay taas noqoto oo adduunka oo dhan yani isla wada gaarto oo lagu sadaqaysto salaada janaasada innaga Soomaaliyana qayb baan ka nahay caalamka islaamiga marka saasay barnaamijkeena ayuu ahaa marka ilaahay khayraadii siiyo asagana ilaahay ha u aqbalo ducadana ayaa maanta u sameynay ilaahay ha u aqbalo jannatu firdaws Allah ka waraabiyo wixii uu dhibaa oo xabsiga ku maray sanadihii uu xirnaa qabriga uu kaga nasto oo beer jannaad ah Allah uga dhigo meel ciriiri ah oo xabsi ayuu ka baxay meel waasac oo janno ah Allah geeyo dadka meeshii ku harsan xanuunsan sidiisii oo kale inay u dhintaan ay ugu tala gashan yihiin oo la yidhahdo almowtul baqiin dhimasho oo daahsan ayaa dadka la dilayaa ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj degdeg ah meel asagu og yahay oo innagu aynan ogeyn ilaahay farajha uga keeno waa madluumiin waxa u haysta ma jiro xabsiyada waxay ugu jiraan waxay rumaysan yihiin marka ilaahay inaan u barino inuu dadkaasi dulmiga u haysto ilaahay uu ka soo daayo ummadda islaamka meel ay joogtaba ilaahay inuu madaayo marka insha allahu tacaala kelimo waxaa inoo jeedinaya oo arrintaas oo kale dardaarna doctor cali baasha cumar hooraaye oo naga soo qayb galay janaasada iyo barnaamijkan kelimo kale oo yaroo doctor liilaan وأستوى لو جيد دون أو دارنا أنت سيان كسر يومين على تعليم كان جيدين جري وكهر مصري سواء بين تجنن مكا دكاترة أيا مع العلم تولا يو يعادوا ولا يسكن السلامان أيا كلمة جيدة إن شاء الله تعالى كنت على الباشا أيا من البداية كلمة إن شاء الله تعالى وصل جيديو أو غيرها يوياش عن يسد من مراجع معالي فأولا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم هذا الشهيد دكتور مرسي اللهم تقبله شهيدا اللهم ادخله في بسيط جناتك اللهم ادخله في بسيط جناتك اللهم ارحم موتانا اللهم لا تفتنا بعده اللهم لا تفتنا بعده اللهم اهلك الظالمين الذين سجنوه وقتلوه اللهم اهلك الظالمين الذين قتلوه وسجنوه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا المحسنين جزاكم الله خيرا واجبات الاسكوليه هي كم تاعي جنازته marka aad baad ilaahay ajir badan haydi ka siiyo hashtigan faraha badan leh maanta magaalada muqdisho masjidka Umar ibn al-Khattab Sheikh Abdul Hayy aan kula tukanay عمر بن الخطاب كيلومتر 5 magaalada muqdisho aniga khatiibka masjidka maanta waxaan soo soo baxnay salaadii janaasada inaan ku tukano madaxweyne Maxamed Mursi oo dhawaan geeriyooday waxa taas keenay waxay tahay isagoo aan cadaalad helin oo xabsiga yani dhibaatadii loo geystay u geeriyooday kadibna janaasadii uu mudnaa aan ka helin wadankiisii caalamka islaamka ayaa waxaan la wadaagaynaa ducada maanta jumcada aan lagu baaqay in yani loogu soo duceeyo taas oo ku tusaysa yani wanaagiisa iyo qiimihiisa waxaan wadada oo isu soo baxay cid yani ama la soo kireeyay ama wax loo kala loo soo sheegay ma aha
waxay ka qeyroodeen gardarrada dhacday iyo dulmiga ayaga oo ducadii la garab istaagan janaaso waddankiisa uu ku waayey waxa ummadda islaamka oo dhan ayaa janaaso u samaynaysa annaga oo ka mid ah ummadda islaamka oo shacbiga Soomaaliyeed qayb ka mid ah إلهي هون حريستو ومدى الإسلام جودها وحيابها dhibaatada haysata waa kiristaanimo oo ummadihi korka ka saaran taas oo keentay inay dadka saa u dhintaan taas oo isku xiriyo oo ummadu ayadu waxeeda ay yeelato xor noqoto arrintaas ay shucuubtu iyo u dagaalamayaan oo ay rabaan inay ummadooda xor ku ahaadaan qofkii saas loo diidana waxa uu ka dooranayaa intii uu dulli uu ku jiri lahaa inuu si yani adkaysi leh ilaahay agtiisana cadaalad u kaga raadinayo inuu geeriyoodo allahu naxariis madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed ka soo qayb galayna waanu mahadcelinayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذا هو ما سنتين شوي جزيلا وفسحتني على غلطهم